xafladan oo ahayd mid aad loo soo agaasimay waxa lagu sagootinayay ardayda fasalada afraad ee sanadan ka qalin jabinaysa dugsiga sare ee Al-Aqsa ee gudaha Boorama ku yaala waxaana xafladan ka soo qayb galay gudoomiyaasha jaamacadaha Eela iyo Camuud ee Boorama ka dhisan gudoonka waxbarashada ee gobolka Nowdal waalidiin iyo arday aad u tiro badan ugu horeen waxa xafladan ka hadlay maamulaha dugsiyada sare ee Al-Aqsa Mudane Axmed Cabdilaahi Talan waxa uu ka warbixiyay heerarkii kala duwan ee dugsigan Al-Aqsa ee Boorama ku yaala uu soo maray iyo ardayda fasalada afraad ee sanadan ka qalin jabinaysa dugsigan sare maraaxil kala duwan soo maray wuxuu dugsiga hoose laga dhigay dalka Soomaaliya iyo guud ahaan gobolkeena maaragtay awgalba waxa dugsigani marxalado badan soo maray laakiin nidaam tacliimiye oo maaragtay rules iyo regulations iyo nidaamkiisa waxbarashada wuxuu gaaray sanadka 1999 ayuu soo gaaray oo si fiican u qaaday marka marxalado badan soo maray waxa maanta ka jabiyay dugsiga oo kala jabinaya gurubkii afar tobnaad kala jabinaya marka waxa laga raayay halkaasi iskuulku inuu u baahan taariikh iyo la sheego maanta waa functional waa dugsi shaqeeya internal and external labada gudiga dibadda u shaqeeya xafiiska tartaba Al-Aqsa wuu joogaa gudiga wali waa common staff sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed iyo gudoomiyaha ku-xigeenka jaamacadda Eelo oo iyaguna munaasabadan ka hadlay ayaa waxay amaan u soo jeediyeen ardayda fasalada afraad ee sanadan ka qalin jabinaysa dugsiga sare Al-Aqsa iyagoo ku baraarujiyay inay si horumariyaan waxbarashadooda ilaa heer jaamacadeed madaxa adduunka ku nool waxay ku kala dheeranayaan oo kaliya ka kulban wuxuu ka dhaxlay dadkiisii hore marka waanu idin la dadaali jaamacadaanu idin furay meelaha adduunka waanu idin kordhin doonaa biidnillah iskuulkana waa kii ugu cawansanaa anigu markuu safar galay 12 sano soo waqtiganayay hadda safar kale isna 12 waqtigeena soma waa la tigijiya soma waxbarashadii intii nuxurkeedii ayaa hadda idin dhiman mid ka mid ah ardayda fasalada afraad ee sanadan ka qalin jabinaysa ayaa waxa uu cabiray dareenkiisa cabirado ma malaynayo inaan cabiri karo ma malaynayo waayo waxa aan ku cabiro ma lahayo kooyo wasaacad qadana kooyo waayo iskuulkayga aan ka sii socdo wallahi ma taqaana labada dhanba marka loo eego shucuurteeda ma aha mid aan maanta soo cabiri karo qaar ka mid ah salaadiinta gobolka Awdal waalidiin waxgarad iyo aqoon-yahano munaasabadan ka soo qayb galay ayaa waxa ay ku baraarujiyeen ardaydan inay si horumariyaan waxbarashadooda iyagoo ku amaanay maamulkii macallimiinta dugsiga sare Al-Aqsa sida ay ugu hagar baxaan ardayda dhigata dugsigan lacagteena durusataan in xaafadaha ku dhex ururdaan waxaan ka bariyaa inay noqoto inta durusataan la dhaw iskuulka Al-Aqsa lacagta inta lagu galaasay soo ururiyo ugu deeqaya jidka heblaayo ama bikada heblaayo ugu deeqaya oo dalka tusaale u noqotaan akhlaaqda wanaagsan iyo tarbiyada wanaagsan macallinka ixtiraamkiisa waalidka ixtiraamkiisa bulshadiina ixtiraamkeeda inaad inta kor u qaadaan ayaan idka filaynaa insha Allah waan faraxsanahay hadalkayga ka soo tartamaya waxaan shucuurtayda muujinayaa aniga oo tala Soomaaliga muuqata Al-Aqsa kana hadana Al-Aqsa uma adartay waxaan muujinayaa aad iyo aad inaan maanta u faraxsanahay inay hadana murugo iyo farxad inay isugu jirto mar waan faraxsanahay oo ardaydeedii baa la qalin jabinaya mar waan burgoonaya dugsiga quruxda badnaa anigu waan dhigan jiray ayaan ka tagay waan burgoonaya saaxiibkay maanta ardaydu ka mid yahay Cabdulqaadir runtii maxay isagana waxa la gaar ahaan ardaydu ka mid isagana waxa la gaar ahaan Xambal iyo Cabdulqaadir maadaama maanta adiguna ardayda aad ka mid tahay Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama